مشرح اللبان قولها شعب كبرلمان كجمهورية فدرالك Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa musharaxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay soo dhaweynta musharaxa ayaa sheegay in Cabdirashiid Maxamed Xidig uu mudan yahay in mar kale loo doorto kursiga xildhibaan ee deegaan doorashadiisu tahay Jubbaland. soo dhawow waan ku soo dhaweynaynaa wiilkeygii baa tahay fadlan soo dhawow kursiga haddaad carab ku leedahay oo ilaahay kuu qoray cidna kuuma diidayso ka taageerni hidig garab ka taagna hidig walba unikiin hayna hidig reer Jubbaland garab ka taagna dadku iskama doontaan beerta waa la beertaa mirahoodana waa la cunaa asaga beertii asaga naga keen hadalka hadii wuxuu yahay maana rabnay ma raan tuur lahayn gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Jubbada Hoose Faadumo Aadan Kateela Axmed Maxamed Taqal gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan musharax Cabdirashiid Maxamed Xidig. maanta halkan u taaganahay oo aan ku soo dhaweynay musharax Cabdirashiid Maxamed Xidig oo awaa taqaanaan haliyay reer Jubbaland aad baan ugu faraxsanahay maanta sida quruxda badan ee u soo dhaweynay xildhibaan Xidig oo runtii mudan intan iyo in ka badan in lagu soo dhaweeyo waxaan leenahay mudane xildhibaan soo dhawow. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha kursiga leh oo soo dhaweynta musharaxa ka qayb galay ayaa musharax Cabdirashiid Maxamed Xidig ku amaanay dadaalka dheer ee uu soo galay wax u qabashada bulshada reer Jubbaland. wixii farsamo ah iyo wixii kala xulasho ah way iman doontaa kasii hordhici maayo dadaalkeedana wuu wadaa. Cabdirashiid Maxamed Xidig haddii aan la jeclayn kuma soo noqdeen ilaa maalinkii Soomaaliya ay ka soo kabatay ee Cabdullaahi Yuusuf iyo maalinkan maanta inta ka dhaxay oo aragtaan maadaama oo qaybgal wanaagsan laga soo qaybgalay anigoo ah curadka ogaadeen siina muqaabul ah oo reesacada Xidig kursiga waansin musharax Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta wuxuuna shaaca ka qaaday inuu yahay musharax mar kale u taagan qabashada kursiga xildhibaannimo ee golaha shacabka. aniga maanta waxaad runtii ii muujiseen rabitaan iyo kalsooni iyo dhiirigelin taas oo saldhig ku bays garaysan wax kasta waa inuu leeyahay saldhig iyo bays. dalkan aynu joogno Soomaaliya waxay kala yeelatay maamullo reer Jubbaland maamulkan ay leeyihiin meeshu ka soo bilaabmayna waynu ogeyn ku joogay iyo ku ka maqnaaba meesha uu maanta marayna waan ognahay inta u dhaxaysa wixii aan soo marnayna waan garanaynaa. maanta meesha ay maraysa waxay u baahan tahay in dhidibada loo adkeeyo. xilliyo badan oo la soo maray oo horumar in laga shaqeeyo ay ahayd waxaa lagu mashquulsanaa mushkulad kale oo difaacideeda iyo maxaan ku idhaahdaa hirgelinteeda oo ogeydeen taariikhii Soomaaliya soo maray iyo Jubbaland markay dhisantay 2013 inta u dhaxaysay marxaladaha aan soo marnay waan garanaynaa. Xasan Yuusuf Maxamed Shafadyare raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Kismaayo.